taariikhda wax ka bedelay. Halkan waa kanaalka dunida. Thomas Alva Edison dhalashada 1847 ilaa 1931 waxa uu ahaa ikhtiraacii Mareykanka u dhashay oo salkiisa ka soo jeeda waddanka Holland. Waxa uu ku dhashay tuulo lagu magacaabo Milan oo ka tirsan gobolka Ohio. Yaraantiis waxba kuma baran oo xanaanaysay hooyadii. Kadib Thomas waxa uu muujiyay fariidnimo iyo maskax badani, halkaas oo uu caalamka ku soo kordhiyay waxyaabo badan oo maanta la'aantood aan la joogi karin. Waxyaabaha uu Thomas alifay waxaa ka mid ah laambada, mikrofoonka, madbacadda maanta wax lagu daabaco. Waana qofkii ugu horreeyay ee sameeya sawirada maanta loo yaqaan kaartoonka ee TV-ga ka soo baxa. Waxa uu Edison alifay in ka badan 1000 shay. Waxa uu guursaday 2 jeer. Naagtiisii hore waxay dhimatay iyadoo yar. Waxa uu noo dhalay 6 carruur ah. Waxa uu dhimatay wuxuu dhintay sanadii 1931. Thomas Edison waxa uu ku dhashay tuulada Milan ee gobolka Ohio ee waddanka Mareykanka. Waxa uu ku bilaabay shaqada iibinta joornaalada oo uu ka iibin jiray barta internetka ka baxaan. Waxa uu arkay oo soo jiidatay daawacadda iyo sida wax loo daabaco. Waa uu samray, waa uu bartay. Sanadii 1862 ayaa waxa uu bilaabay inuu soo saaro jariidad lagu magac daray Grand Trunk Herald. Wax kasta uu sameeyay waxaa mudnaanta koowaad lahayd hooyadiisii Marwo Mary, taasoo ahayd macallin barta dadka suugaanta iyo gabayada iyo sida wax loo akhriyo. Hooyadan aad u fiican ayadaa wiilkeeda wax bartay. Kadib markii macallimiinta dugsiga soo eriyeen, isaguna u sheegeen inuu dabaal yahay oo aan waxba baranaynin, hooyadii waxay jecleed isaga aad u jecel. Waxa kale oo uu ka soo shaqeeyay goob laga diro taleefoonada oo ku yaal bosteejada tareenada, taasoo u sahashay inuu sameeyo aaladii ugu horreysay ee telegraph. Waxa uu ku guuleystay shaqadii. Kadib waxa uu u guuray magaalada Boston ee gobolka Massachusetts. Waxaanu sanadii 1876 halkaas ka aasaasay xarun cilmi baadhis ah. Waxa uu ikhtiraacay aaladda loo yaqaan phonograph, kaasoo sameeyay duubiska codka. Kadib 2 sano waxa uu ikhtiraacay ikhtiraacii ugu weynaa ee ilaa hadda lagu xasuusto, kaasoo ah laambada. Dhab ahaantii waxa uu bedelay Edison waxyaabo badan oo caalamka